halkaa ka qayliyo maaragtay waddanka ugu naadiya leena ku heli maysid insha Allah waa Soomaalina noolaataan leeyahay waaya warqad ka soo baxday gudaha Somaliland waxaa lagu joojiyay guud ahaanba duulimaadkii iyo isku socodka Djibouti xilli Somaliland ay dabcan warqadeeda ay ku soo xustay in marka Djibouti ay qayb ka ahayd dawladaha si toos ah ula saftay dawladda federaalka ee Soomaaliya haddaba Somaliland iyo dawladda federaalka maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin Somaliland meesha kaliya ka duulaysa Djibouti ee magarat waa gartay ay ka duulaysa Djibouti iyo meesha la yiraahdo Ethiopia labadaas ka duulaysay hadda asalmada ka duuli karin Muqdisho hadda waxay ku qasban tahay ayuuna waxa ka sabay in duulimaadkooda Muqdisho uu noqdo mafaad waa gartay mid kale dawladda Soomaaliya waxaan leeyahay hal xiraan leeyahay diyaaradaha Ethiopia hal jaraan leeyahay qurunka la aamusan tahay waxay doomi raalli ka tahay wadaay la aamusan tahay tanuna waxay rabtaa inay marka duulimaadkeedii Addis Ababa wareejiso ma kala jecleen Addis Ababa wareejisay meesha ku haysay nin asigiiba meel ka duulo loo wadankii meel ugu baxal ah hadda asigii uu leeyahay diyaarada uu joojinaa horta awoodda Soomaaliland male awoodda duulimaadka iyo dalka iyo gooshka Soomaaliya iskale ayada lagu marka kuwa qaldameen waana qaldan yihiin aan leeyahay saalay aadan leeyahay waxba ma joojin kartaan waaya saaxib miyaadan ogeyn in dawlad goboleedyada dalka qaar ay ka aamuseen arrimaha aqoonsiga dalka sida Jubbaland iyo Puntland صح وين واجهها ايه بل كورن maamul goboleedaas maya qurux iyo qurux la'aan baadar ma waxa wal mataqana ween horta Soomaalida in adeero waxay dhibaato ka haysataa dadkii dawladii Soomaaliya dibufiyay ayay horta labadan nin ka soo jeedaan waa gartay dadnimo ahaan iyo ficil ahaan ay ka soo jeedaan ana ku shaqeey waa kuma labada qofood waa labada maamul goboleed Soomaaliya hore gadaal u diiday ilaahay kugu daariyay guriga Soomaaliyeed ah cidani wuxuu ahaa shalay ninkii Xasan Sheekh soo saaray kihiliyay madaxweynaha dadkan u roonay kihiliyo haddana saaka asiga waxay yiri Soomaaliya aan xiriirka u jarnay mid kale waxa ku tusayaa xildhibaanada laga soo doortay Jubbaland iyo xildhibaanada laga soo doortay Puntland cashuurta ummadda Soomaaliyeed ee qaadanaya ilaahay kugu daariyo xamar ee fadhiyaan waxay noqdeen naago bil qaadanay noqdeen madaxweynihii soo xulay ayaga soo doortay federaalka u soo diray wuxuu leeyahay xiriirkii Soomaaliya aan jaray ilaahay kugu daariyo Falastiiniya ma Israa'iila ma Kenya ma Soomaaliya adeero macaan dadkan dawlad la xisaabtanta Allah noo keeno cadaalad darrada Soomaali ku hayaan Allah ka qabto ayago Soomaali kala markay bixiyaan waxaan dhihi lahaa ayagu ha baxaan wax ayaga bixiya Allah marka labadaas nin waa qalbiyin Soomaaliyeed dhaqaaqada ma rabaan inay meel u socoto ma rabaan xildhibaanadii xamareed u soo direen wixii ummadda Soomaaliyeed ka qaatay mushaarka annaguna waxaan ka celinaynaa in dalkayna soo gasho dawladda Soomaaliya labadaas eray ciidani iyo Axmed Madoobe ayaga laga rabaa inay iswaafajiyaan ummadda Soomaaliyeed oo kamid ah aniga adigu waa ka sugayna waaya aad ma santahay soo